السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا walaalkiin Cabdi Yuusuf halkan waxaan idinku soo bandhigi doonaa 12 dabeecadood ee dadka wanaagsan lagu aqoonsado dabeecadda iyo shakhsiyadda waxaa lagu qeexaa sida aad wax u samayso ama aad arrin u wajahdo laakiin lama eego waxa aad sheegto dadka wanaagsan waxay leeyihiin shakhsiyad heer sare ah oo ay dadka oo dhan ay dareemaan waxaa jira arrimo laga sameyn yahay ama aad sameyn karto si aad dabeecaddaada kugu gaarka ee wanaagsan dadka banaanka ugu soo saarto kow noqo qof karti leh ma jiro wax uusan awoodin qofka noocaana welina lama arag qof hawlkar ah oo faraxsan guulna gaaray kaasoo aan lahayn dabeecaddan nambarka labaad noqo qof xiise u qaba inuu wax hubsado dadka wanaagsan waxba ma mala awaalaan haddaba jooji malaha badan waa inaad jeclaato hubsiimada iyo ogaanta waxa dhabta ah nambarka saddexaad noqo qof leh ujeedo cad oo aan sir ahayn dadka waxay la tahay inay khasab tahay inaad noqoto qof fiican haddaba way wanaagsan tahay inaad noqoto qof edeb leh balse waddadaada iyo ujeedadaada aad leedahay yaan lagaa leexin nambarka afraad noqo qof cafin badan inaad xanaaq uurka ku qaado waa inay noqoto waxa ugu yar ee lagaa filayo haddaba qofkii kaa gala khalad adigana ka soco oo cafiska badi nambarka shanaad noqo qof madax bannaan dadka dabeecadaha wanaagsan si fudud looguma yeeshan karo galgal dhanka maskaxda ah balse si wanaagsan ayay dadka kale u dhageystaan nambarka lixaad noqo qof dadka xushmeeya ma ogtahay sida dadka aan isku kalsoonayn ay xushmad darrada ula dhaqmaan adiga ama dadka kale daal ayaa ka muuqdo maxaa kaa khaldan maanta waa su'aalaha ay dadka weydiiyaan waxayna muujinayaan xaasidnimo iyo xushmad darro balse dadka xushmadda badan weligood sidaa ma sameeyaan nambarka toddobaad noqo qof run badan marka aad si joogto ah been u sheegto ugu dambeyn waa lagugu qaban doonaa waana ciwaabi doontaa waa sababta mid keenaysa in dadka lagu dhiirigeliyo inay runta sheegaan nambarka siddeedaad noqo qof hadal yar oo af daboolan nambarka sagaalaad qof cadaalad badan noqo ha noqon qof aan cadaaladda falin cadaaladdu waxay xitaa qayb weyn ka tahay diinta islaamka nambarka tobanaad noqo qof dabacsan noloshu way adag tahay waxaana ka buuxa isbeddelo badan si aad uga dhex badbaado waa inaad noqotaa qof la qabsan kara isbeddel kasta iyo xilli kasta nambarka 11aad noqo qof naftiisa garanaya oo is-ogow inaad ogtahay waxa aad awooddo iyo waxaad awoodin waxay noloshaada ka dhigaysaa mid fudud nambarka 12aad ugu dambeeya noqo qof rajo wanaagsan oo khayrka filo dadka wanaagsan u dhiib shaqo culus isla markaana waxay ka fikirayaan qaybta wanaagsan balse dadka xun waxay bilaabayaan inay ka dayriyaan kana fikiraan culayska soo food saari kara haddaba daawad haddii aad daawatay muuqaalkan adiguma ku jirtaa 12kan dabeecadood ee wanaagsan dadka iska leh haddii aadan lahaynna hadda bilow oo ku dadaal wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh